Waxaynu arkaynaa in dhammaan dadku ay ku mashquulsan yihiin telefoonadooda, balse ninkan dhalinyarta ah magaciisa waa Lee. Wuxuu ku mashquulsan yahay aaladda internetka uu ka raadinayo goob lagu iibiyo waxyaabaha celiska ah ama alaabaha celiska ah. Lee waxa uu raadinayaa habkii uu u heli lahaa laptop uu iibsado. Waxa uu dirayaa fariimo badan, balse waxa uu jawaab ka helayaa haweeneydan. Waxaana u sheegaysaa inay hayso laptop iiba. Aad ayuu u farxayaa. Halkaa markay xaaladdu marayso, waxa uu siinayaa fariimihii iyo ciwaanadii loogu soo diri lahaa laptopku doonayo. Dhanka kale, haweeneydan magaceedu waa Hun. Waxay ka maamulo ka tahay meherad aad u weyn. Waxay canaananaysaa shaqaalaheedii oo u qaban waayay hawshii sidii loogu talagalay. Dhanka kale, iyadana sheefkeeda ama mas-uulkeedii ayaa ku xanaaqay una sheegay in hawsheedu aanay u socon qaabkii loogu talagalay, maadaama aanay shaqaaluba ahayn qaar u carbisan habkii wax loo maamuli lahaa. Dhanka kale, Huen waxay rabtaa inay saaxiibadeed Daajo kala hadasho waxyaabo aad u fara badan oo nolosheeda ku saabsan sida bahal dharka lagu maydho, balse Daajuna ayaa u sheegaysa inuu jiro application la magaciisa Target oo lagu iibiyo mashiinada dharka lagu maydho. Lee oo ahaa ninkii dhalinyarta raadinayay laptopka ayaa waxa uu helay fariin ku socota in uu loo keeni doono laptopkii soona qaadi doono. Gabadhii waa usoo sheegaysay walaalkeed albaabkana uu taagan yahay, balse mar kaliya ninkii uu albaabka ka furay baa midi la dhacaya, maadaama ninkan ahaa nin ugaarsada dadka masaakiinta ah ee internetka wax ka iibsanaya. alla internetku howlo badana. Ninkii markiiba waxa uu qaadanaya mobilkiisii, waxa uu sawirayaa shay kasta oo guriga yaalay, waxaanu dhigayaa applicationkii Target ee uu kaga iibinaya dadka alaabihii. Dadkii markuu dhigay, qof kastaba fariin ayuu soo diray isagoo doonaya alaabahan inuu qaato. Xagga kale, Hun waxay daawanaysaa mobilkeeda iyadoo raadinaysa mashiinka dharka lagu maydho. Waxay arkaysaa mashiin qanciyey kay ayaanay dalbanaysaa. Waxaana loo sheegayaa inuu jaban yahay, balse markii loo keenay bahalkii wuxuu ka bixi waayay cillad. Haweeneyda Huan ama Hian waxay markiiba aad uga cadhootay dhibaatada ku dhacday, taas oo ah in mashiinkii laga iibiyay aanu haba yaraatee shaqaynayn. Ninkii ay ka iibsatayna aanu haba yaraatee u soo jawaabin. Isla markiiba waxay tagtay saldhigga booliska, waxaana gudbisay dacwad, taas oo ah in ninkii mashiinka ka iibiyay uu khiyaameeyey, una baahan tahay in dacwad laga qoro. Isla markii dacwadii laga qoray, Hian markii ay gurigeeda timi waxay ku mashquushay profilkii ninkii ka iibiyay mashiinka, waxaana goobta ku aragtay laptopkii ninkii dhalinyarta Lee ee la dilay, kaas oo ku tusaysa in ninkan mashiinka ka iibiyayna uu yahay ninkii dilay Lee, waana dilaa khatar ah. Haddaba iyadna waxay ku qoraysaa dhammaan website-kii dilaaga. Ninkani waa tuugyaan lacag loo diray, yaan waxba laga iibsan. Waa nin dadka dhaca, hantidana aan haba yaraatee mas-uuliyad iska saarin. Balse ninkii waxa uu ku warhelayaa waa tuugii ama dilaagii in haweeneydan ay daba dhigatay website-kiisa. Waxaanu markiiba awoodda saarayaa qaabkii u ogaan lahaa barta ay ku nooshay. Isla markiiba waxa uu ogaaday, maadaama uu ahaa nin ku takhasusay kombiyuutarka ahna hacker, in uu ogaado halka ay ku nooshahay. Xariifkii dilaaga markii uu ogaaday halka ay ku nooshahay iyo telefoonadeeda iyo dukumeentigeeda, waxa uu qaybiyay magaalada dhammaan telefoonkeedii. Intaasoo qof ayaa soo garaacaya, message u soo diraya. Waa ay yaabtay, waana fajicin, ninkan waa maxay? dabeetana isla markii waxay ogaatay hawshan ay gashay inay tahay hawl aad u khatar ah. maxay ahayd mashiinka dharka ay ku maydhaysayna ee ay dalbatayna uu yahay kii nolosheeda khatar geli lahaa. Isla markiiba waxa uu imanaya intaasoo biisaa ama waxyaabo la cuno oo aanay dalban. waa ay yaabaysaa, gurigeeda waa ay xidhaysaa. dabeeto waxay ku qoraysaa, ma rabo in qofna gurigeyga yimaado, mana rabo biisa dambe iyo wax dambe cuntaan laga keeno. saldhiggii booliska ayaa tagtay, waxaanay sii xoojisay dacwadeedii iyadoo sheegtay in ninkii uu dunidaba u qeybiyay telefoonkeedii, gurigeeda inay iska soo daba dhacayaan biisa iyo cunto aanay dalban. boolisku hawsheeda way dheersanayaan. Huyuun cadhadii ay ka soo qaaday ciidamada booliska waxay waqti yar la soo qaadanaysaa saaxiibadeed. Kadib markii ay ka timaadana waxay imanaysaa gurigeeda iyadoo uu ninkii dilaaga dusha kala socdo. Waxa uu iska soo dhigaya xariifkii dilaagaha injineer ku takhasusay ciladaha guryaha, waxaanu ku xidhayaa gurigeedii dhammaan goob kasta oo ay istaagi jirtay kamaradaha qarsoon. iyadoon taas ogeyn ayaa uu ka faaideysanaya. dhinaca kale waxaa loo soo dirayaa message aad u fara badan, taas oo ay la yaabayso oo ay ka mid tahay walaalkeeda oo usoo qoraya, fadlan waxaan u baahanahay lacag. Kadib markii aragtayna waxay sameynaysaa walaalkeed telefoonkeedu ay soo qabanaysaa, waana garaacaysaa. Dhanka kale,
geesta kale hoyoon oo qolkeeda hurdada hurdaya waxay ku warhelaysaa in albaabkeedii lasoo garaacayo. Xariif ayaa soo wacaya waxaana uu sheegayaa in iyadu la ballantay oo uu rabo hawshii ay ku ballameen oo ah inay gogasha ku ciyaaraan ay fuliso, balse way ku cadhoonaysaa, madaxa ayaana xanuunaya. Way yaabaysaa, telefoonada iska soo dabadhaca maasajada, dabeetana iyadoo arrinkii ka fikiraysa waxay xasuusanaysaa in gurigeeda uu jiro kamarada ku xidhan, maadaama ay markii ay aragtay bahalkan biyaha soo daaya oo muuqaalashadaya. Haddaba markii ay saa u fadhiisatayna waxaa iska soo daba dhacaya maasejo fara badan oo uu soo diray ninkii tuugaha ee geesta kale. Xariifkan oo dilaagu soo siiyey ciwaanka haweeneydan ayaa ciidamada boolisku gacanta ku dhigaya waana garaacayaan. Kadib markii la geeyay xarunta booliska waxa uu sheegayaa inuu yahay miskiin, telefoon laga soo wacayna loona sheegay in haweeneydan ay tahay mid ka qanacsatay jirkeeda. Haweeneydan iyadoo qolkeedii hurdada iska jiifta ayaa waxaa kusoo laba dhacaya maasejo aad u fara badan. Waa ay yaabaysaa iyadoo ciidamada booliska la wadaagaysa xaaladda ay ku sugantay inaanay ahayn xaalad fudud. Geesta kale boolisku waxay ogaadeen tuugii halkii uu ku noolaa. Dilaagii markaa gurigiisa yimaadeen waxay ogaanayaan in aanu haba yaraateen isagu gurigan ama kuna noolayn amaanu lahayn. Waxay ogaanayaan ninkii dhalinyartaa Lee ee doonayay in laptop sida meydkiisa uu ku riday talaagada isticmaalayana gurigiisa. Ciidamada boolisku waxay baadhayaan gurigiisa ay uga helaan faro. Ciidamada boolisku hadda waxay u tixgelinayaan kiiska haweeneydan inuu yahay kiis aad u adag oo ninka kiiskan ka dambeeya uu yahay dila aad u khatar badan oo ugaarsanaya dadka aan ahayn dadka xoogga ah ee ama keligood nool. Hooyoon ayaa ku soo noqotay gurigeedii waxaanay arkaysaa albaabkeedii oo furan. Waxay u gelaysaa hore gurigii, balse waxaa kasoo dabagelaya xariifka ay shaqo wadaagga ahaayeen. Aad bay u naxaysaa waxaanay ku xidhaysaa sida ugu dhaqsiga badan albaabka, maadaama uu rabo ninkani inuu kufsado oo uu saqraansan yahay. Gacanta ayay kaga xidhaysaa, dhaawac baana gaarsiinaysaa. Xariifkii marka uu gacanta kaga xidho xanuunka uu dareemo ayay gurigeeda hore uga sii soconaysaa. Waxaanay arkaysaa gurigeeda oo isdhex yaalla oo lagu ciyaaray. Dhanka kale kijadii markii ay tagto waxay arkaysaa kijadii oo cunto lagu cunay. Xanaaq bay qaadaysaa, wadnaha ayaana xanuunaya. Waxaana mar kale TV-ga isku soo qorayaa goor hore ayaad guriga timid. Waxaana fariintaas soo diray dilaagii. Indhaha ayay kala qaadaysaa waxaana ogaanaysaa xaaladda ay ku sugantahay xaalad yar ahayn. Gudihii markii ay hore usii gasho waxay wacaysaa booliska gurigii markay yimaadeen waxay ka baarayaan faro balse lagama helayo. Hooyoon waxay raacaysaa buubar iyadoo isku dayaysa inay ka fogaadato madax xanuunka dilaagan, balse gurigeeda waxaa loogu ballaminayaa mid ka mid ah saraakiisha ciidanka booliska ugu tayada wanaagsan. Waxaana la hordhigayaa gurigeeda. Kadib isaga oo gurigeeda hor fadhiya ayaa maxaa dhacaya. Xariifkan dilaagii waa maqosla waa majicin waxa uu ballan ku qaaday inuu dili doono haweeneydan. Geesta kale dababaadhaha oo ku sugnaa gurigeeda horteeda waxaa weerar ku soo qaadaya dilaagii, waxaanu isku dayayaa inuu dilo. Waxa uu sooxinayaa sirdoonkii ninkii ahaa, balse isagoo doonaya inuu khaarijiyo waxaa sanqadhi ka agdhacaysa agtiisa maadaama baabuur ku soo dhowaanayo. Horseed buu hore ayuu iskaga sii soconaya isagoo hawshiisa ahayd inuu hiyaan dilo sii gudagelaya. Waxa uu sii gelayaa gurigeeda maadaama yahay ninka hakaran ayar bus kaga furaya. Dhanka kale maamulaheeda isku dayay inuu kufsado ayaa gurigeeda imada si uga raali geliyo. Waxa uu arkaya ninkan hortaagan waa dilaagii waanu xanaaqaya. Waxa uu ku tuuraya u bixi isagoo aad u caytamay oo inoo sheegaya in naagtan isagu jecel yahay sababta guriga keentana ay qalad tahay, balse dilaagii ayaaba ninkii tuuray la dhacaya oo dhan kastaba ka gelinaya. Hiyaan gurigeedii bay timid iyadoo iska baraadla xaaladda guriga ka taaganaan ogaya. Hiyaan iyadoo gurigeeda iska dhex orida ku nasanaysa fadhigeeda waxay arkaysaa in goobta siyaarka loogu talagalay inay ku qayliso ay kama soo jeedaan kamarada, meel kastana ay kamarad ku xidhantay. Markii ay ogaatayna waxay sii daba raacaysaa qolalkeeda iyadoo ogaanaysa in dil loo geystayba sheefkeeda maamulaheedii oo uu halkan ba yaalo sida ay kamarada u daba socotay. Mar kaliya gadaal ama dhinaceeda dambe waxay ka maqlaysaa sanqadh. Waxaba taagan dilaagi manaxaha orod bay isdhigaysaa balse kama yeelayo, waa uu sooxinayaa. Haweeneyda hiyaan ahayd hore ayaa loo soo qaadanayaa sida alaabta. Waxaa goobta imanaya dambi baarayaashii oo ereyanaya ninkii tuugga ahaa iskuna dayay inay soo qabtaan, balse soo qabashada tuugga si looga badbaadiyo haweeneyda waxaa ka dhalanaya khasaare aad u weyn. waxaana baabuurkii dambi baaraha jiray gaari kale. Dhanka kale waxaa isrogaya gaariga ay saarneyd hiyaan iyo tuuggii oo dhaawac gaadhay ayaa meesha ka baxsanaya. Waxaa loola soo cararayaa dambi baarihii iyo hiyaan cisbitaalkii weynaa ee magaalada waana lagu dabiibayaa. Dhanka kale ninkii dambi baaraha ahaa dhaawacii halistaa soo gaadhay ayuu ku dhimanayaa. Saaxiibkii oo aad u xanaaqsan ayaa waxa uu sheegayaa hiyaan in uu dhintay dambi baarihii.
Geesta kale, Hiyaan waxaa ku soo dhacaysa fikrad ah in ay tuugan u soo bandhigto dunida. Waxay soo bandhigaysaa fikrad ah iyada oo dambibaaraha la kaashanaysa inay sameeyaan profile cusub kaas oo ay doonayaan inay ku khiyaameeyaan dambiilaha. Markii ay sameeyaan profile cusub, waxay ku qorayaan magac cusub iyo weliba sawir cusub. Kadibna waxay ka codsanayaan dambibaarihii ama dilaagii in uu alaab ka iibiyo. Isla markiiba dambibaarihii iyo Hiyaan waxay isku raacayaan goobtii. Dilaagii goobta ayuu imanaya. Isla markii uu Hiyaan arkay, waxa uu dareemay in dabil loo dhigay. Iyadana waxay ogaatay inuu isaguna uu fahmay xaaladdu halkaa marka ay marayso. Waxay ka dalbanaysaa inay suuliga yara tagto, balse waa uu ka daba tegaya. Waxaanu ku qaadayaa weerar isaga oo madaxa gidaarka ugu dhufanaya suuxinayana. Haddaba dilaagii waxa hore u kaxaysanayaa Hiyaan. Dhanka kale, dambibaarihii ayaa waxa weeye telefoonkii maadaama aanu helin wicitaankii Hiyaan, waxaaba sii sugayaba ninkii dilaaga ahaa. Dhanka kale, Hiyaan ayaa kasoo kacday koomadii, waxaanay markiiba isku dayday inay ka baxso dilaaga, waxaana gashay balkoonka. Dilaagu waa mid aan nixin, waxa uu soo qaadanaya isla markiiba midida isagoo isku dayay inuu dilo xawaya Hiyaan, balse waxaa kasoo gaadhay dambibaarihii dagaal dheer. Waxa weeye xaaladdu faraha ayay ka baxaysaa. Dilaagii wuxuu isku dayay inuu dilo Hiyaan, balse Hiyaan waxay markiiba soo qaadanaysaa bahashan loogu talagalay in lagu hagaajiyo fadhiyada ee ay ka dhacaan masaabiirtu. Waxaana la dhacaysaa dambiilihii waxau isku dayayaa isagoo waxa weeye adkeynaya in uu dilo Hiyaan, balse dambibaarihii ayaa daaqada kala baxaya. Waxaanu kusoo dhacayaa baabuur. Isla markii uu baabuur ka soo dhaco, waxaa ka daba imanaya Hiyaan iyo dambibaarihii, waxaanay ku dhegayaan afka iyagoo naqaska ku xejinaya. Bartii ayaanay ku dilayaan dambiilihii waxa uu ahaa mid aan nixin oo dadka ugaadhsida magaaladana cabsi geliya. Hiyaan iyadoo faraxsan ayaa waxa u mahadnaqaysaa dambibaarihii. Hadda jawigeedu waa uu degan yahay, waxaanay dareemaysaa farxad maadaama ninkii odayga ahaa daaqada laga saaray. Aad baan idin salaamaya asxaabtayda qaaliga. Fadlan haddii aad ugu cusub tahay kanaalka, noo subscribe saar, like, share iyo weliba la sii wadaag asxaabtaada. Waan kuu mahadnaqanaa. Fadlan nagu dhiirigeli mar kastaba muuqaaladan soo dhigno.